madaarka weyn ee Cigaal International Airport ee diyaaraduhu ka soo degaan kana soo haadaan ee magaalada Hargeysa lagu soo dhaweyn doona oo goor dhaw soo caga dhigan doona ambassadorka Somaliland halgan weyn u galay sidii oo adduunka iga weyn lahaa waa Sharmaarke Falaax Nuur oo ah markaasi ku magac dheer Ballashire boqolaal qof oo isku jira shacabka reer Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweynaya ambassadorka oo halkan diyaar ugu ah iyagoo markaasi heegan ugu jira sidii ay markaasi u soo dhaweyn lahaayeen odayaal badan oo kamid ah dadka deegaanka oo soo dhaweynaya ayaa goobtan ku sugan magacaaga igu bilow magacaygu waa Cabdi Khadar Iimaan Geelle waxaan soo dhaweynayaa maanta ambassadorka Sharmaarke Falaax Nuur Diiriye Shire oo ku suntan magaca magaalada degmada Sabawanaag gaar ahaan Ballashire waxaan doonaynaa inaanu si fiican ugu soo dhaweyno maanta masalaha airportka isagoo ku sugayno hudheelka imika diyaarna waxaan u nahay soo dhaweyno ayaan soo dhaweynaa diyaar ku nahay ka tirsan degmada Sabawanaag marka odayaashii baanay waan soo dhaweynaa magaca Ballashire oo caan ku ah deegaanka maxaa lagu xasuusanayaa Ballashire waa caan doorashooyinku si wanaagsan bay uga dhacaan iyo codadkuba kolka saasaan soo dhaweynaa magacaaga aduna Raas Maxamed Galaya waxaan soo dhaweeyaa Ismaaciil Falaax Nuur Sharmaarke Falaax Nuur waxaan ku soo dhaweynayaa airportka ayaan ku soo magaalada Hargeysa ayaan ku soo dhaweynayaa magacaaga aduna Cabdi Cumar Qoofal marka hore waxaan leeyahay bal ka waran maanta waxa timi madaarkii Cigaal International ambassadorka oo wadankii uu safiirka ka ahaa halgan badan ka soo galay Somaliland qadiyadeeda wadamo badan ka iibinayay baad soo dhaweynaysaa aragtidaada maanta walaal aragteed horta marka hore salaam calaykum aad iyo aad baa salaamantiin marka waxaan leeyahay walaal horta wax walba waxay u baahan yihiin in maskax iyo magaranaysaa si wanaagsan oo cilmiyeysan wax walba loo sameeyo ninkan soo dhaweynaa waa ambassadorkana waxaan leeyahay soo dhawow waxaana weeyaan kii marka koobaad doorasho iyo wax lagu jiraa iyo higsi himilo fog baa lagu jiraa himilada fog iyo higsiga lagu jiro ninkii ka saarla waqtigan lagu jiro inuu ambassadorka yeebaan anigu u qabaa sida musharax golaha wakiilada marka markii hore waxaan dishay marar badan in godseeg uu ku dhaco deegaanka marka deegaanada Sabawanaag iyo Cadaadley labadaba kii ka saarla inuu yahay Sharmaarke Falaax Nuur ambassador Sharmaarke Falaax Nuur baa la soo dhaweynayaa dareenkaaga maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkaygu maanta waa boqol waa maalintii ugu wanaagsaneyd dareenkayga waayo waxa la soo dhaweynayaa ambassadorkii ahna gudoomiyaha golaha wakiilada haddii alla ka dhigo mustaqbalka haddii alla ka dhigo hawshaas aad iyo aad baan waan salaamay aniga Axmed Cali Nafyar baa la yiraahdaa waanu soo dhaweynaynaa xildhibaanka golaha baarlamaanka noogu sharaxan Sharmaarke Falaax Nuur aad ka waran waa musharax doorkan maxaad isleedahay shacabku way u hayaan maadaama halgan badan Somaliland u soo galay cod badan baan u haynaa cod badan magacaaga adigana maxamuud alaali oo ku magac dheer goodir ku magac dheer goodir uga dhalan magacay kolkolka reer Sabawanaagi waa ayagii way ka waran dareenkaygu maanta musharaxa la soo dhaweynaya aad buu kacsiin dareenkaygu waana aad iyo qalbi baan ku soo dhaweynaynaa waana rajaynayaa inuu maaragtay doorashada soo socota inuu door wanaagsan uu ka ciyaaro maxaad isleedahay codad intee leeg buu helayaa musharaxu maadaama oo shacabkii reer Somaliland abaal badan uu galay waxaan filayaa inuu noqdo xildhibaanka ugu cod badta Abdullah Ali Faarax Liibaan ka waran dareenkaaga maanta ambassadorkii Sharmaarke ayaa la soo dhaweynayaa Falaax Nuur Ballashire oo caan ku ah deegaanka ka soo jeeda ka waran dareenkayga wallahi aad iyo aad u wanaagsan waa maadsantahay waxaad soo dhaweynaysaa musharax golaha wakiilada ambassador waxa weeye Sharmaarke Falaax Nuur Ballashire ka waran dareenkaaga maanta iyo madaarka Hargeysa dareenkaygu wuu fiican yahay aad iyo aad u fiican yahay waxaan ku rajaynayaa inuu soo baxo magacaaga saddexaad adiga Jaamac Cabdi Cumar Ibrahim Jaamac ka waran dareenkaygu maanta waa boqol aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaad soo dhaweynaysaa ambassadorka hormaad soo kala hadaysaa waxaan soo kala saakay 6 subaxnimo ayaan barta ku soo diyaar garoobay maanta oo dhan bacadkaan u taagnayn waxaan soo dhaweynaa Sharmaarke Falaax aad baad maasantay
dareenkaaga adeero soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan soo dhaweynayaa Sharmaarka Fallax Nuur waxaan magacayga la yiraahdaa Maxamed Cumar Ismaan waxaan ku soo dhaweynayaa salaan tiiran kashkii laabta ka soo goday waana salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal waad arkaysaan dareenka shacabku siday u soo dhaweynayaan siday u faraxsan yihiin dadka qaarkood waxay leeyihiin xalay toole maana seexan si aan u soo dhaweyno ambassador Sharmaarka Fallax Nuur waxa uu caan ku yahay magaalada Ballashire oo dad badan ay si weyn ugu garanayaan